العالمين عشرتيني كوساب سنة أنا مال ساينس كأما veterinary medicine كا أي نقولي كوجد شرنا مانتا وحويا وقيبتي لواد كوساب سنة جيلة يو scientific classification جيلو وليه قيبه جيلو قيب صواني كوساب شغلي مركها قيبتي لواد جيلة veterinary medicine نقول إيجينا جيلة أي ندوني نماتي إن بالجيلة قيبتي لواد جيلة شرحنا جيلة صار كان قارتان جيلة halkan waxaan ku eegaynaa camal red blood cells unugyada asaasiga geela can protect from dehydration because of their shape camal geela waxa weeyaan blood cellskiisu ayaa waxa weeyaan u kaydiya biyaha waxaan soo sheegnay markii casharkeena koobaad ku soo sheegnay geela in aanu kurusku u kaydin biyaha dadka qaar baa aaminsan ama waxa weeyaan theory ayaa jira sheegaya geela in kurusku ay ku kaydsan biyaha ila geel waxa weeyaan markuu biyo cabo waxa laga yaabaa markii inuu cabo ilaa ugu badnaan marka uu cabo geel wuxuu cabi karaa ilaa 100 litir oo biyo ah ayuu cabi karaa markaas waxa laga yaabaa inuu 2 bilood ama bil biyaha ka qatanaado waxa weeyaan waa xoolaha waa neefka qura ama speechka qura biyaha inta ka qatanaan kara waxa weeyaan geelu markaas waxay leeyihiin biyahan hadaba geel waxa uu ku kaydsanaya biyahan geel waxa uu ku kaydsanaya blood stripkiisa ayuu ku kaydsanaya waniga soo sheegnay red blood cellska geel waxay u leeyihiin capable inay u kaydiyaan biyaha seebay capable ugu leeyihiin capable red blood cells capable to protect from dehydration because of their shape xagga shape-kooda ayaa ka duwan shape kale shape-ka red blood cellska geela shape-kiisu waxa weeyaan oval shape weeyaan therefore sida waxa weeyaan si lamid ah markay shape-kiisi red blood cellska shape-kiisu oval shape noqday the blood cells are capable for expanding waxay u leeyihiin blood cellska geelu waxay u leeyihiin awood inay kala baxaan ilaa 440% inay kala baxaan xayawaan quraha oo kale oo inta ay kala baxaan ma jiro blood cellskiisu markay kala baxaan their origin without rupture origin-koodii markii hore intuu ahaa waynu garanaynaa taasay kor u baxayaan iyagoo aan qarxayn without rupture so it's possible to drink a large amount of water waxa uu suurtagala markaas inuu biyo fara badan cabo markii red blood cellskiis kala baxaan foliumka cell backer cell foliumkood markii kala baxaan uu biyo badan cabaya markuu biyaha badan qaatana waxa weeyaan in badan ay u kaydinayaan xayawaanaadka oo dhan waxa weeyaan waa xayawaanka qura ee inta ay kala baxaan blood cellskiisu all animalska kale ama mammaliska kale waxa weeyaan waxay kala baxayaan 150 meelahaas ay kala baxaan 150 waxa weeyaan ayuun bay kala baxaan boqolkiiba camel immune system is a different from other animals takale uu geelu la leeyahay khaaska waxyaalaha kale mucjisooyinka geelu uu khaaska ku yahay in veterinary medicine waxa weeyaan immune systemkiisu uu ka duwan yahay xayawaanad kale immune system ahaan uu ka duwan yahay immune systemkiisu uu ka duwan yahay waxaad arkaysaan halkaas iminka way shaped baan ku qornay is a different from other animal normally way shaped antibody molecules consist of 2 heavy chain kaas way shaped ka antigen molecule-ka antibody-ga waan leeyahay antibody-ga way shaped molecule-ka wuxuu ka kooban yahay 2 chain oo waxa weeyaan aad u culus buu ka kooban yahay kuwaas oo waxa weeyaan xaga short marka laga eegayo short chainska xaga tibkooda ay ka qabsanayaan ay stronger tahay ama ay culus tahay camel kidneys capable to concentrate waxa kale jira geela kaliyiisu waxay awood u leeyihiin inay concentration ka dhigaan kaada inay kaada ay ka reduce garayaan to reduce water loss concentration bay saarayaan waxa weeyaan kaadida ayay ka nuugayaan waxa la xidhiyo ku jira kaadi concentration oo sida syrup oo kala ayaa inuu kaajo geeyo oo biyihii oo dhan laga reebay kaadida marka waxa weeyaan kaliya hadii uu leeyahay inay biyaha kaadida ka reebaan si markaas taasi waxay u saamaxaysaa hadii kaliya awood u yeeshaan inay biyo badan ka absorb gareeyaan kaadidii waxa taas u sahlaysaa inuu aan biyo badan ka lumin waxay awood u leeyahay physics-kiisa iyada laftigeeda uu absorption gareeyo oo aad u absorption gareeyo waa to reduce water loss also to extract water from their fecal pellets waxa weeyaan awood buu leeyahay fecal pellets bal waxaynu eegaynaa science for rat
waxyaalaha lagu garto markuu science baa jira markuu geel awrku qooqan yahay lagu garto markuu awrku qooqo science for ratanka waxa weeyaan the back part of the root of the mouth is pushed out like pinky balloon waxa weeyaan macnaheedu geelu wuxuu soo tuurayaa doob bulay doobta uu soo tuuraya only waxa leh one humble kamalka inta badan ayaa doobiya bacterium kamalku inta badan ma doobiyaan laakiin se dromedary kamalka inta badan waxa weeyaan waa doobiyaan oo waxa weeyaan doob ayay soo tuuraan waxaan leeyahay awrku markuu qooqan yahay testicleskiisu way weynaanayaan oo waxa weeyaan testicleskiisu enlargement bay sameeyaan way weynaanayaan glandiska ku yaala halkaas nectar awrka dabadiisa ay ku yaala waxay sameynayaan iyaguna waxa weeyaan halka qadaadka kaga yaala waxay sameynayaan bad smell waxa wad aragteen Soomaalidu waxay u taqaanaa dawaad buu taqaanaa dawaad weeyaan halkaas ay kaga taala geela dambe markaas iyaguna waxa weeyaan aad bay glandiskaasna waxa sameeyaan ador bay sameeyaan urk bay sameeyaan geelo markuu awrku qooqan yahay waxa weeyaan wuxuu kala fogeyn karaa labadiisa lugood oo isagoo laba hore isku soo dhaweynaya labada dambana kala fogeynaya sidoo u dhibilisto waxyaalaha lagu garto ay ka mid tahay science for ratin when camel spread out its back leg and use its tail to spray urine of its back hadii markuu kaajo ayuu ku dhibilisanaya kaadidii oo wax weeyaan halkan ay dhibidu kaga taale dambe ayuu marinaya waa science for ratinka lagu garto geela hadaynu soo gabagabayno عشرة فر بدن بيدوننا إنه كده يارنو جيلة نقاشة جيلة iyo mucjisooyinkiisa geela wax weyn waa mucjiso geelu waxyaalo badan oo mucjisooyin baa geela ku taxaaran waxaynu insha Allah soo gelin doonaa YouTube channel kan Soomaali veterinary aan ugu talagalnay ummadda Soomaaliyeed inay mar kasta waxay aqoon u soo gudbino bulshada walaalaha si aan ula wadaagno wixii iyagana ay garanayeen ka jahil yihiin markaas waxa weeyaan geela Soomaalidu waxa weeyaan geel loo kala sheekay aad bay u taqaana Soomaalidu geela marka please waxaan ka codsanaynaa channel kan subscribe gareeya like gareeya wixii comment xagga hoose nagu dhaafa